Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal soo dhawaada. Waxaan idiin soo gudbinaynaa wararkii ugu dambeeyay mudaharaadka ka socda magaalada Boorame oo isu beddelay haatan dagaal foolka-fool ah oo u dhexeeya bulshada reer Boorame oo markan hubkoodii la soo baxay. Sidoo kale ciidamo markaasi sheegay inay yihiin ciidamada Awdal State oo gudaha magaalada Boorame soo galay isla markaana dagaal adag kula jira ciidamada kala duwan ee Somaliland. Khasaare dhimasho iyo dhaawac gaadiid laga furtay ciidanka Somaliland ayaan idiin soo gudbin doonaa iyo wararkii ugu dambeeyay. Balse haddii ay tahay markii koowaad ee na soo booqatay, waxaan kaa codsanaynaa inaad nagu soo biirto oo muuqaalkan like gareyso, siina share gareyso si dad badan xogteena ay u gaarto. Magaalada Boorame ama aan dhahno magaalooyinka Boorame iyo sidoo kale Saylac ayaa waxaa ka taagan xiisad xooggan oo ka dhalatay go'aanka xukuumadda Somaliland ay markaasi dib ugu ogolaatay in la qabto bandhigga buugga xeerka Ciise, kaasoo ah dabaaldegga markii sanad guuradii ka soo wareegatay markii qaramada midoobay ay aqoonsatay xeerkaas. Magaalada Boorame xalay waxaa ka babanayay calanka Soomaaliya ee buluugga ah, waxaana muuqato in gobolka Awdal ama magaalada Boorameba ay la mid tahay magaalada Laascaanood sida ay ahayd 2023. Xaaladuhuna ay aad isaga agdhow yihiin marka loo eego marxaladaha mudaharaadyadii bilowday ee gacanka hadalka isu beddelay markii dambena shacabka ay hubkooda qaateen. Tii waxba kagama duwana oo magaalada Boorame bartamaheeda waxaa ka socdo dagaal rasaas markaasi la isweydaarsanayo. Hadda way ka tagtay arrinta banaanbax oo ciidanka Somaliland ay ku daabushay magaalada Boorame. Waxay adeegsadeen rasaas nool oo shacabka ay u adeegsadeen. Dhimasho iyo dhaawac ayaa la soo warinayaa ilaa hadda oo markaasi la gaarsiiyey shacabka, halka dhanka Somalilandna khasaare uu jiro, walow labada dhinacba tirada rasmiga ah ilaa hadda aan la soo xaqiijin. Balse inta warbixinteena aynu ku guda jirno, wixii soo kordha faahfaahinta ayaan iskugu soo gudbin doonaa ee markaasi khasaare ah ee la soo wariyay. Magaalada Boorame waxaa lagu gubay xalay calanka Somaliland, taasoo muujinayso heerka ay markaasi gaareen shacabka reer Awdal, gaar ahaan beesha Godobiirsi. Waxyaabaha ay ku dhawaaqayeen waxaa ka mid ah in Awdal State ay yihiin iyagu oo Somaliland ay markaasi burburtay oo ay ka go'een. Waxay ku celcelinayeen in waxa laan la dhaho aysan markaasi iyagu shaqo ku lahayn oo Awdal State ay yihiin. Shacabkii mudaharaaday markii rasaas lala dhacay oo xaaladdu faraha ka baxday, iyaguna calanka ay gubeen, sidoo kalena ay bilayska dhagax kala hortageen, ayaa waxaa soo galay gudaha magaalada jabhad la baxday in ay yihiin dhaqdhaqaaqa Awdal State. Taasaana keentay in iyaga iyo shacabka oo isbahaysanaya ay weerar xooggan ku ekeeyaan iskana difaacaan ciidamadii Somaliland ay ku daabushay magaalada Boorame. Ciidamo la baxay xaqudirarka markaasi Awdal State ayaa waxa ay la wareegeen bangiga dhexe iyo sidoo kale saldhigga magaalada Boorame. Muuqaallo baraha bulshada lagu baahiyey waxa ay muujinayaan shacabka oo gacanta ku soo dhigay qaar ka mid ah askarta Somaliland halkaas ay geysay oo dhaawacyo qaba
oo ay ka carareen ciidamadii kale wax u qaban waayeen. Sidoo kale waxaa dhaqdhaqaaqa ciidamada markaasi habbeeleedka u abaabulan iyo shacabka oo isbiirsanaya ay gacanta ku soo dhigeen gaari ay lahaayeen ciidanka bilayska Somaliland oo meel godah ku dhacay oo ciidanka ay isaga carareen. Magaalada Boorama xalay waxaa ka dhacay dibadbixii ugu weynaa oo Somaliland lagaga soo horjeedo, kaas oo u muuqdo mid sida lagu qaboojiyo ama uu ku istaago ay aad u adagta. Jabhadda gudaha magaalada ka dagaalamayso waxay heleen oo haatan soo gaaray gurmadkii ugu xoogganaa, waxaana markaasi la filayaa in ciidankan ay isku fidiyaan gudaha magaalada oo hadda subaxnimo ah. Waxaa lagu arkayaa waddooyinka magaalada ciidamada Awdal State oo markaasi ka qayb qaadanaya sugidda ammaanka iyo ilaalinta shacabka, maadaama rasaas noolnool lala dhacay shacabka reer Awdal. Waxaana haatan soconaya weliba iska hor imaadyada u dhexeeya dhinacyada, inkastoo Somaliland ay xilli horeba ugu talagashay in xasuuq ba'an ay ka geysato magaalada Boorama, maadaama ciidamadii ugu badnaa ay ku daabulaysay maalmihii lasoo dhaafay halkaas. Xukuumadda Somaliland ayaa markay ciidamada halkaasi ku daabushay kadib ku dhawaaqday go'aankeeda oo ah in la fasaxay bandhigga buugga xeerka Ciise, taasoo markaasi ay aad uga soo horjeedeen shacabka u dhashay beesha Gudabiirsi ee markaasi degan gobolka Awdal oo ka biyo diiday. Xukuumadda Somaliland oo mowqifkeeda ku adkaysatay ayaa shacabkii arrintaas ka dhiidhiyey rasaas kala hortagtay, waana midda keentay in caawa beesha Gudabiirsi ay ku dhawaaqday in ay maamul gaara u taagan ay yihiin, islamarkaana Somaliland ay ka baxeen oo calankii ay gubeenba. Inkastoo dhaawacyada iyo sidoo kale dhalinyaro ku dhimatay dagaalkan oo caan ka ahaa magaalada Boorame, qaarkood marka ay dhimanayeen gacanta ay ku haysteen calanka Somaliland, haddana waxaa xusid mudan in shacabkii mudaharaadayay ay dab qabadsiiyeen calanka Somaliland oo ay sheegeen in aysan aqoonsanayn islamarkaana aysan taageersaneen maamulka uu hogaamiyo Cabdiraxmaan Ciro oo iyagu ay yihiin Awdal State. Isku soo wada duub, xaaladda magaalada Boorama ayaa qasan, iska hor imaadyo bilayska iyo u dhexeeyo ciidamo hubaysan oo garab ka helaya shacabka mudaharaadaya ayaa goladda iskula jira. Wixii warar ay ku soo kordho wararkeena xiga ayaad ku daawan doontaan daawadayaal.